الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وفائدتي صد إيا أفراد كتاب كيني الفوائد للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله فائدة شيخ ومقعد دري آيات قرآن بو عوان ودري وأيوب إذ نادى ربه أيوب مركي ربي وياري وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين آياداس buu soo qaatay wuxuu yidhi sheekhu waxaa lagu jamciyey ducadan ilaahay subxaanahu watacaala ayuub ducadan uu ilaahay ku baryey waxaa lagu jamciyey xaqiiqatu tawxiid tawxiidka xaqiiqadiisii oo rabbi uu baryey iyo idhaaru lfaqri walfaaqa ilaa rabbi iyo inuu muujiyey baahida uu alla u qabo iyo tabaryaraantiisa annii massaniya dur inuu yidhi dhibaatada haysata iyo baahidiisina wuu sheegtay waxaa kaluu xusay allah subxaanahu watacaala maxabada iyo jacaylka uu u qabo iyo inuu isku dhedhejiyo uu sheegto iyo inuu qirto ilaahay subxaanahu watacaala sifada raxma ilaahay subxaanahu watacaala oo uu leeyahay wa anta arxamu araaximiin ayib tawasul wuxuu sameeyey uu ilaahay subxaanahu watacaala ugu tawasulay ugu dhowaaday sifaadkiisa isaga oo dhibaatadiisa haysataana ay aad u badan tahay ayib aayadda ibnulqayim raximahullah wuxuu yidhi cajab arrin aad u cajab badan markii la helo qof dhibaataysan sida ayuubba uu dhibaataysnaa oo uu ducadaana akhristo waa laga faydayaa dhibkiisa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaana la tajrubeeye buuri qofka yidhaahda 7 jeer akhriya aayaddan walaa siyamaa isaga oo aqoon u leh oo garanayo ku kalsoon ilaahay dhibka haysta uu ka faydayaa وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 7 jeer wuxuu yidhi qofka haddii uu akhristo dhibaata ay haysato ilaahay dhibka wuu ka qaadaya ayib wuxuu ku lifaaqay faa'iidada mid kale oo la xiriirta oo iyaduna duca ah oo nabiyullaahi yuusuf waxay ahayd isaguna uu ku ducaystay markuu lahaa anta waliyii fi ddunyaa waalaakhira yuusuf waa kii yidhi ilaahay markuu jamciyey dhibaatooyinkii badnaa ka soo saaray aabbihii iyo walaalkii iyo walaalihiiba alla jamciyey ilaahay mulkiga iyo awoodda siiyey dhibaatadii iyo ceelkii iyo wuxuu soo maray ka soo bixiyey markii ugu dambayn qisadii dheerayd iyo gebagebadeedii anta waliyii fi ddunyaa waalaakhira tawaffanii musliman waalxiqnii bisaalixiin buri marka waxaa lagu jamciyey buri ibnu qayim ducadana aliqraar bialtawxiidi waalistislaam inuu qofku iqraar uu qirtay tawxiidkii allah la qiray istislaam iyo isdhiibidna waa la qiray waa la isdhiibay anta waliyii fi ddunyaa waalaakhira adiga a weligayga gacantaada aan ku jiraa kama baxsanay yaa rabbi iyo inuu muujiyey idhaaru liftiqaari ilayh baahida uu allah u qabana wuu muujiyey oo iyaduna uu muujiyey inuu allah subxana wataala u baahan yahay anta waliyii fi ddunyaa waalaakhira adiga ah waa la isku bihinbihinayaa waxaa kale uu inuu baraa'ah muwaalaad inuu gaaladii iyo xidhiidhkoodii iyo waxaasoo dhanna uu ilaahay subxaanahu watacaala uga beri noqday ayib taasoo uu ku muujinayo ilaahay u tawaffanii musliman anigoo muslim allow i oofso oo idil waana gaayada waxaa la yidhahdaa qofka kasta oo muslim ah yoolka uu higsanayo inaad ku dhimato islaamnimada ah allahuma tawaffanii musliman aad tiraahdo ilaahu anuu muslima iyo oofso oo adduunkan iga saar taana waa waxaa iyaduna sidoo kale uuse ictiraaf inuu qiray in la noqonayo iyo dalab muraafaqatu sucadaa dadka sucadada ah oo fiican ilaahu macooda iyeel waalxiqnii bisaalixiin
ilaahayow i waafaj i haleeshii i gaarsii dadkaa wanaagsan meel ila deji waa kuwii ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa ilaahayow guruubkaas meel ila deji buuri marka taasina waa ducadii uu ku ducaysay labadaa duco ayuu sheekhu qaybtanna kusoo iyagana isagu keenay labadabana ay ka muuqanayso baahida qofku qabo iyo isdhiibidda inaad isdhiibto iyo allah subxaanahu watacaala asmaadiisa iyo tawxiidkiisa inaad ku barido ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa oon baryaynaa annagana inuu ilaahay gaalnimo inaga badbaadiyo gaalnimo inuu alla naga badbaadiyo annaga oo muslimiin ana alla na oofsado ilaahay annaga oo muslimiina inuu na oofsado ilaahay muslimiin annaga oo na oofsado وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم صلى اللهم وسلم على النبي وصحبه أجمعين